والله سعيد waxaan isleeyahay maanta hadda wararka anigu aan maqlayo waa ku khasaareynaa iyo waa qiimeyn doonaa iyo سعيد waxaan malaynayaa khasaaro intii hore ugu filan Puntlandna kuma harin resource-gada in dib loo khasaariyo ama dagaal unnecessary la geliyo سعيد anigu waxaan kula talin lahaa hadduu tala qaadanayo inuu dawladdan cusub la shaqeeyo soo dhaweeyo fadlan haddii aad nagu cusub tahay lag follow iyo share page-kan doorashada iyo election-ku soo dhacay iyo sidii wax loo kala aaminsan yahay waa taaban doonaa laakiin waxa ka horeysa horta qof inaan dhiso waxa ka horeysa in qofka mabaadi dhab ah ay naga dhaxaysay سعيد inuusan mabaadi dhab kala dhaxayn xasan iyo teamkiisa oo سعيد uusan aragti saaxiib siyaasadeed lahayn waxa ku cadeyn kara سعيد wareegga koowaad siyaasadda isaga hogaamiyay kalsooni darro dadka dhami ka wada qabaan baa سعيد loo taageeri waayay oo loo arkay inuusan Soomaaliya hogaamin karin macnaheedu taas waxay ku tusaysaa سعيد ninka uu yahay iyo bulshada mujtamaca Soomaaliyeed waxay ka aaminsan yihiin marka doorashada wareegkii labaad la gaaray oo wareegkii koowaad laga soo gudbay kii labaad loo gudbay oo madaxweynihii hore oo xilka ka tagay iyo madaxweynaha hadda iyo Xuseen Xasan Sheekh Maxamuud ay tartamayeen option-ka xildhibaanada lahaa absolutely سعيد waxaan nin tartamay awoodii wuxuu lahaa soo bandhigay awoodiisa doonay dadkii isaga la socdeen option ma lahayn labadaan inay kala aadaan bay ku khasbanayeen waa tahay maalmo ka hor dib ayuu ugu laabtay magaalada Garowe waxa uu la kulmay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo siyaasiyiin si dhow ay isugu dhow yihiin waxaana wararka la soo dusiyay ee laga helay ay sheegayaan in uu sheegay inuu ku khasaaray dagaalkii uu la galay dawladdii hore midaan hadda jirtana aan wax tala ku lahayn bal maxaa xogo naga siin kartaa kulankaas wax dhaxmaray xildhibaanada iyo madaxweyne Siciid Deni waa wax fiican hadduu qirtay inuu khasaaray waa maqlayo wararkaas waa la sheegay inuu yiri doorashadii dagaalkiina waa ku khasaaray doorashadina waa ku khasaaray inuu maanta marka wadadii khaldaneed oo 4 sano ka hor soo bilaabay uu maanta gartay anu waxaan leeyahay waxay ka fiican tahay inuusan garan inuu maanta gartay oo garanayo wada khaldan inuu hayay dadka reer Puntland uu qarto naftiisana uu qarto wax fiican weey ma laakiin muxuu u sheegay xildhibaanada dad xog ka hayso dabcan xildhibaanada wuxuu u sheegay dagaalka in lagu guul daraystay dagaal guul darro aha in dawladdii horena lala diriro tanna maanta uusan aragti fiican iska haysan dabcan saas uu hadalka u dhigay baa lagu yiri laakiin سعيد waxa uu dawladda hoose kore ku haystay iyo wuxuu tan ku haysto waxaan aaminsanahay labadaba inuu kaga gadaraya sababtuna waxa weeye Sعيد isagoo cid ma la tashada qofku markuu isagu cid talada wax ka siiyo buu oran karaa maxaa aniga leeyla tashan waay taladu ma tahay cid gaar khasab kuma سعيد ilidkii reer Puntland iyo ummadda reer Puntland oo dhan buu soo baabiyay halkaas waxay 500 qof isaga la diriraya oo kula diriraya tala xumadiisa iyo inuu taladii Puntland dayacay oo meel cidla dhigay wada khaldanna 4 sano ku waday maanta marka inuu yiraahdo dawladdii horena ilama tashanayn oo waxaan ku dirirayay tanna maanta ilama tashanay waa inaan la diriro way dabcan waxaan aaminsanahay inay tahay fikir khaldan waxa la filan karin inay isku soo dhawaan karaan Siciid Cabdullaahi Deni iyo dawladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama xooga taageera waqtigii ugu dambeeyay ee doorashada uu ka helay garabkiisa haba yaraata ma badnaatee ha ka hadlamayno waa maxay ay kula tahay sababta uu waqtiga u leeyahay waa ku khasaaray dawladda cusub ama tashi kuma yeelan maxaa sababay kara inuusan dawladdu wax tashi ku yeelan ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabo ugu yaraan walaalow tashiga iyo horta arrimaha hoose tafaasiil dheer kama bixin karo sababtoo waa wax aanan hadda waaqicigeeda wax badan ka ogeyn laakiin siyaasadda guud iyo dawladnimada Soomaaliya waxaan qabaa سعيد la tashi ka dhiman horta ma jiro halkaas Shambari shir lagu wada qaatay iyaga iyo madaxweynaha cusub go'aamay soo wada saareen isku raacsan yihiin madaxweynuhu isagaan dad badan xilka joogay buu iyagoo dhan isugu yeeray dabcan tashiga Sعيد tabayo oo ka hadlayo ma garanayo hadday tahay madaxweynaha cusub maan kursiga la maamulo sidii kii hore u haystay waxaan aaminsanahay waa arrin aan logic ahayn waana fikran sax ahayn dawladnimada Soomaaliya
door bay kala leedahay صح dowladda state-ku door buu leeyahay cad oo dastuurka ku meel gaarkana ku cad lana yaqaano mabaadi'da guud iyo intaan ka xasuusto dastuurka 4 qodob oo waaweyn oo dowladnimada ka mid ah baa dowladda federaalka ahi leedahay dabcan aan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo dowladda federaalka ahi kow ownership-keeda inay muujiso muhiim tahay waxaa ka mid ah arrimaha dibadda waxaa ka mid ah ciidamada xuduudaha iyo lacagta in dalka lacag loo sameeyo 4taa qodob baan malaynayaa baa dowladda federaalka ay si gaar ah u leedahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha maxaa la igala tashan waayay ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu isaga awoodiisa leh inuu soo magacaabo dastuurkana siinayo inuu cid kala tashana meel ay ku caddahay oo dastuurka kaga caddahay dalka ma jiro maxaa laga filan karaa siciidan maadaama uu ka quustay ama quustu ka muujiyay dowladda cusub wallahi siciid waxaan isleeyahay maanta hadda wararka anigu aan maqlayo ah waa ku khasaaraynaa iyo waa qiimeyn doonaa iyo siciid waxaan malaynayaa khasaaro intii hore ugu filan puntlandna kuma harin resourcigeeda in dib loo khasaariyo ama dagaal unnecessary la geliyo siciid anigu waxaan kula talin lahaa hadduu tala qaadanayo inuu dowladdan cusub la shaqeeyo soo dhoweeyo puntland xuquuqda ay ku leedahayna kaga la xisaabtamo dowladnimada Soomaaliya dowladnimo u baahan tahay dowladnimada Soomaaliyana inay dhisanto qayb ka noqdo anigu hor taladan siin lahaa waxa bulshada puntland ka filaysana waa ka siciid khilaaf dame iyo inuu moogtahay dowladnimada dameeto oo challenge ah uu ku yahay bulshaduna ka filaymayso because of dalka duruufo adag baa ka jira abaaraha ka jira marxalado adag baa lagu jira puntland siciid waxay ka filaysaa timekii doorashada soo wadhay doorashada inuu qabto oo ku qabto dabcan wadda waxyaalaha uu ka sheekeynayo dimuqraadiyadda uu ka hadlay ma aaminsaniye kaliya wuxuu gaari karaa waa sidii puntland lagu yaqaanay iyadii inuu ka shaqeeyo boogadhay puntland u sameeyo puntland nabarada ku yaal oo aadka u waaweyn oo soo gaaray muddadii uu hogaaminayay inuu dhayo